صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 سنذيو فرض كأوغا فقرا سكذا سيا سنذيو فرض كأوغا فقرا سكذا سيا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. آية لحد بينو أيين دول تاجنين كم سورة المائدة وآية الطهارة وكور ربي سوي سدا يا مايرجا يجب جبيسجا فإذا كوتشرا ويسدا أما طهارة ضبا روحي جاوا إنساء رجني فإذا كعافمات فرها بدن وحكم ذا qofku sida inuu ogsoonahay waxa lagu waajibiyay weysada inuu maydho inta jirka muuqata jirka inta muuqanaysa waxa weey inta kurta iyo gacmaha iyo cagaha sida faraha badanna waa inta la kulanta boorka iyo barafka iyo bacadka iyo dhididka iyo subaga jirka ka soo baxaya intaasana bacteeriyadu ka dhalataa cagaha waynu ognahay oo inta soo booray dhax qaadaya iyo dheeri gacmiina waa meeshii wax lagu qabanay siba ragga oo shaqeynaya kurtana waa intii qofka u banaanaydo inta soo boqol oo kun oo bacteeriya oo baraf la socda boorka ayaa jiiraya intii baa Ilaahay wada hal maydho subhanahu wa ta'ala wax la masaxo iyo wax la maydhaba waxa markaa weysadii ku jiro oo caafimaadka wax ka taraya maydhida sanka la maydhayo wuxuu faray nabigu calayhi salaatu wasalaam in lagu xeel dheeraado xadiidkii laqiid wuxuu ku yiri wabaalig fi al-istinshaaq illa an takuna saa'iman fiif dhabiyaha inaad sooman tahay mooyaan marka waxa la daraaseeyo la ogaaday qofka sankiisa 5 jeer nadiifinaya ee duufkii iyo wasakhdii ku jirtay ka nadiifinaya iyo ka intaaba aan saasoo kale u nadiifinayn inaanay isku caafimaad ahayn sankoodu sankii markuu caafimaad yeeshana waxa caafimaadkiisu wanaagsanaanaya bay dhaad ma yusama al-jihaz at-tanafusi habka neefsashada qofku neefsanayo oxygen si wanaagsan iyo sanbabadiisa wax la ogaaday way macruuf waxay weysada wax ka taraysa indhaha bakooradu way ku yartay beelan dadka weysaysta cudurada bakoorada iyo infection-ka indhaha dadka weysaysanaya mar walba maydhay 5 jeer way ku yartahay indhihii iyo sankii way noo fayoobaadeen Allah inoo fayoobay waxa yimi afkii waxa la daraaseeyo la ogaaday qofka luqluqanaya 5 jeer ee 5 jeer cadayanaya maalintii iyo ka aan inta haysan inaanay isku afna ahayn isku ilkana ahayn isku hunguriyo hanqalaaltoon ahayn isku ilka ma waxay yiraahdeen daraasaday sameeyeen 90% dadka ilkaha beela haday afkooda luqluqi lahaayeen ee caday lahaayeen si joogto ah ilku way u joogi lahaayeen bay yiraahdeen 90% dadka ilka beelay bay yiraahdeen haday cadayga iyo luqluqashada joogto ka dhigi lahaayeen ilkaas kama dhinteena way u joogi lahaayeen rasuulkuna sallallahu alayhi wa sallam xadiidkii saxiixa waxa uu ku yiri lawla ana shuqa ala ummati la amartuhum bisiwaak 'inda kulli salah wa fi riwayatin 'inda kulli wudu ummadda hadaanay dib ku noqonayn waxa waajib kaga dhigi lahaa cadayga weysadu la socdaa waa sunnayaasha weysada la socdaa hadaanay dib ku noqonayn markasta weysanay markasta cadaynayba waajib baan kaga dhigi lahaa laakiin waa sunna imaka marka inuu ciridkii qofkii u fayoobaado oo afkiina u fayoobaado hunguriga iyo qaaxadiina u fayoobaadaan waxa ka dawaa luqluqashada iyo weysada
waxaa xusid mudan afkeenu wuxuu leeyahay maa yusamaa bilmaadda sadiidiya waxa inagu aynu u naqaano huurada ayaynu idhaahnaa huuradaasi hadday afka ka tagto oo caloosha ay tagta bay idhaaheen calooshu waxay u qaybinaysaa jidhka cudur iyo caafimaadba jidhkii bay u qaybinaysaa waxaa laga yaabaa inuu maskaxda saameeyo iyo xididada jidhkaba almaadda sadiidiya min alfam maadada aan nadiifta ahayna ka tagtay afka ee lucaabkiiyo dhareerka raacday caloosha gaadhay cudur bay jidhka u qaybinaysa idan markaa calooshii baa ku fayoobaanaysa siduu afku ugu fayoobaanayo waxani waa wax baadhitaan ahoo la ogaado la daraaseeyo wey sidaa indhaha iyo afka iyo sankuba ay ugu fayoobaadeen waysada ilaahay idamkii dabdaaca waa intii la odhan jiray e n t-ga dhegiina waa tan la masaxayo dhegihii indhihii sankii dhakhtarka e n t-gu intaasunbuu fadhiya inuu ilaaliyo marka hawshiisu ma badanaysa dad weysaysanaya hadduu dhex joogo hawshiisu odaygaa dhakhtarkaa way ku yaraanaysa qoladii indhaha iyo bahasha yar ku eegi jira waxaa loo soo noqday waxaa la yidhaahdo maqaarka ama jidhkeenna wuxuu soo daayaa unugyadiisu subag tuhni buu leeyahy dadkeennaa dabadda ka shaqaysta mid ka midaba mid masriya ay murmeeno wuxuu ni idinku marka dhididaan waxaa urtaan buuhi xulbad xulbad idinkuna soomaalidiinu subag subag baa urtaan buuhi marka jidhku wuxuu soo daynayaa subag dhididna waa soo daynayaa qashinkaa uu iska soo tuuray idan markay labadaa boodhku qabsadeen laga meydhi waayo maalintii 5 jeer ee qofku wixiisaa uu iska weheshado maqaarka waxa ku dhici kara bay idhaahdeen waxaa loo yaqaano alxika oo cadhada ah iyo cambaaraha iyo kansarka maqaarka daraasaday sameeyeen waxay ogaadeen waddamada muslimku in xagga maqaarka ay ka yar yihiin kansarka maqaarka ku dhaca kuwa gaalada waa weysada bay idhahdeen weysada qofku 5 jeer maalintii weysaysanaya ila waa kaa nebigu tusaale inoogu bixiye calayhi salaatu wasalaam qofka haddii aqalkiisa hortiisa webi marayo oo 5 jeer maalintii uu kaga maydhanayo hal yabqaa min daranihi shay-un miye wasakdiisii wax soo hadhaya maya waxba soo hadhi maya wasakdiisi wasakdii o dhan way ka tagtay markaa wixiisii waa isxambaar way isku raran yihin dhididkiisii subagiisii bakteriyadiisii wixii maqaarkii markaa u kharibay laakiin nadiif buu qofkii u noqonaya inuu xaqo iyo inuu rifo labadu way ka yaraanayaan waxyaabaha cajiibkaa waxaa ka mid ah weysadu waxay wax ka tartaa bay idhaahdeen shayga loo yaqaano addawra tanshiid dawra damawiya dardargelinta wareegga dhiigga ayay si fiican u caawisaa weliba markuu qofku si fiican delkin u sameeyo delkintu waa duugidda waynu ka hadli doonaa weysada waxay leedahay arkaan iyo tiirar ay ku taagantahay culimada qaarkood baa sida madhabta maalikiyada oo kale waxay waajibaadkeeda ku dareen addalku cala alacdaa xubnaha in la jijabiye markaad weysaysanayso inaad ku xejiso gacanta marka gacanta aad ku xejinayso inta meeloode aad ka weysaysanayseed marinayso waxay xoog u samaynaysaa wareegga dhiigga jidhka oo meelahan adraaftu way ka fog yihiin halka dhiigga laga bamgareeyo ee qalbiga ah way ka durugsan yihin faraha iyo gacmaha iyo way ka durugsan yihin marka aada xoog u bamgarayso si fiican buu wareeggii dhiiggu u shaqaynayaa taasina waxay faa'iido ka tahay qofku inuu firfircoonaan helo iyo nashaad adoo imika daalana hadda si wanaagsan u weysaysato oo cagihii inaad sidaa u duugto delkinta aad ku samayso iyo gacmihii iyo xubnihii daalkii wuu kaa ba'aya soo adigoo daalan markaad maydhato maxaa dareentaa xayawiya iyo nashaada iyo firfircoonaan baad dareentaa inantii soomaaliyeed nimankii qafaalaya ay la soo tegeen berigii hore hablaa waa lala tegi jiray markaa iyagoo jidka sii wada oo la tegey ayay doontay caqliyaddeeda inay u muujiso oo munaawaraad ay u samayso dabeedna iyagoo socday tidhi waxaan arkaa ruux baan arkaa hareerahaygana waxaad aragta annagu ma aragno raadkaasi ruuxu buu sheegayaa bay tii haddana subaxii markii la gaadhay bay tihi ina afuriya oo waxba masdana aynu cunno cadayga afura bay tihi cadayga haddana iyagoo fadhiyay tihi ina nasiya
ومحين سوينا قلنا صار إنه وين فلنا كبها إنك بحياة بيت مركا واحد وجه ده isbedel lada qofku uu sameeyo wax badan bay jirkiisa ka bedelaan wax la yaabo maaha marka dawra damawiya nashaadada jirkiisu ay firfircoonaan sameeyso acsaabtuna sidoo kale nashaad ay helaan iyo neerfayaasha iyo siiba kuwa maskaxda intaas oo faa'iido ah iyo in kale oo ka sii badan waxay ku jiraan weysada iyo maydhiga iyo tahaarada islaamkeenu waxaad ogaataa wax kasta oo uu inoo jideeyayba xigmadiisu leeyahay marna waynu fahamnaa marna waynaga qarsoontaa waxaan markaa laga qaadanayaa taa uu nabigu leeyahay isbaaqul wuduu'i waqta al-makaari waysadii oo la dhammaystirku waxa weeye xubnihiina in la wada gaadhsiiyo sidaana loo duugo marka foostaduna ha dhex gelinin ama badda ka shaqaysii gacmaha waylun lilacqaabi min annaar waxaa halaag la dadka cirbahooda aan gaadhsiinaynin biyaha ayaa cirbahoodu naar leeyahay macnaha waa inuu qofkii si fiican uga shaqaysiiyaa u maydhaa u masaxa waxaan wax yar dulmari lahaa baahi aynu u qabno daraaddeed si ay u ogaataan cilmiga weysada weysada waxay leedahay arkaan iyo shuruud iyo mubdilaad waxyaabo buriya iyo waxyaabo shuruud u ah si ay u ansaxdo iyo waxyaabo tiirar u ah tiirarkeeda aayadda ay noo sheegtay afarta la isku waafaqsan yihin wejigoo la maydho gacmahoo la maydho cagahoo la maydho madaxoo la masaxo afarta aayadda way sheegto madaahibtu way isku waafaqsan yihin saddex afar meelahana way ku muransan yihin in la niyoodo iyo in la tartiibiyo xubnaha muwaalaad in lagu sameeyo la isku xidhiidhiyo on la kala qallajinin iyo in la duugo oo saa loo jijibiyo sidaynu sheegayn weysadu waxay leedahay waxyaabo buriya oo afar ka mida la isku waafaqsan yihin meeshan saxaradii iyo kaadidu ay ka yimaadaan wixii ka soo baxaa way buriyaano waa la isku waafaqsan yihin labadaa meelood hadduu qofku gacmihiisa cadcad ku taabtana nadaafadiiba ila loo dadaalayaa iyadana waa buraysaa waa la isku waafaqsan yahay waxaa kaloo la isku waafaqsan yahay haddii caqligu isbedelo ama hurdo uu ku tago ama waali ama suuxdin ama sakrad iyo cabitaan khamri u cabay waa saddex iyaduna waxaa afraadoo la isku waafaqsan yahay qofku hadduu gaaloobo ilahay baynu ka magagal afarta arrimood inay burinayaan waa la isku waafaqsan yahay waxaa la isku khilaafsan yahay hilibkii geela uu jabinayaa ma jabinayo iyo wixii la odhan jiray toobinka ama dhiig iyo dheecaan iyo wax la iska soo daayo taabashadii dumarka arrimahaana waa la isku khilaafsan yihin weysada shuruudaheeda qofka weysaysanaya waa inuu muslim yahay miyir qaba oo haddii uu carruur yahayna mumayisahoo wax kala garanaya daahirahoo hadday dumar tahay aan dhiigagi lahayn biyo nadiifa isticmaalaya jidhkana biyahaas si wanaagsan ay u gaadhsiinayaan toddobadaasina ama shantaasina waxa weeyaan waxyaabaha shuruudaha waa weysada marka waxaad ku dadaalaysaa inaad shuruuddana ilaaliso arkaantana ilaaliso waxaa kaa burinayana adiga iyo ehelkiiyo ubadkaba aada barto markaa saddexdaa arrimoodna waa waxyaabaha asaasigaa weysada uu nebigu uhi dhammaystira caafimaadkan lihi ay ku caafimaad qabi kartay sharciga ku waafaqi karto وهذا ما أقوله وأستغفر الله وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان.